waxa suurtagala in qabiil haysto ama qoys haysato maamulo kala duwan oo dhulka Soomaaliyeed ka jiraan haystaan iyadoo ay xaraftu sidaas u balan tahay haddana waxa lagaaga baahan yahay adiga shakhsiga ah inaadan ku dhex milmin oo maankaaga aqligaaga iyo markaas ficil ahaanba aadan waxyaabahaas ugu dhex milmin si markaas aad adigu u noqotid qof aqli badan oo waxyaabo kala duwan fiirin kara tusaale ahaan cid is haysata inaad mar walba aad xanafta isku kiciysid markaasi aad ka rabaastid waxa dhacaya adigoo arkaya in aysan wax macno leh aysan ahayn waxna aysan ka qusayn ama siyaasad ahaato ama arrimo qabiil ahaato dhammaan waxyaabahan oo dhan ha noqon qof qarax u diyaarsan tusaale ahaan in aad ka mid tahay markaasi qabiilka aad 24 saac aad qaaqda u gurtid waa dhibaato iyo mushkilad ku soo kordhay aan dhihi karnaa bulshadeena Soomaaliyeed